السلام عليكم أصحابي كسولو هذا فلنقين تافلانتا الصومالي هوت شو مانتا waxaan idin wadaa filin dagaal iyo ruwaayad iswata oo la yiraahdo Big Brother haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ga waa dhiirigelin haddii aad ka heshana like saar mahadsanid daawasho wacan Henry wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada Hong Kong isagoo sanadihii u dambeeyay ka tirsanaa militariga Mareykanka wuxuu damacsan yahay inuu bilaabo shaqo macalinimo wuxuu tagay dugsiga sare ee Tachi oo hore wax ugu soo bartay maamulihii dugsiga ayaa u sheegay inuusan lahayn khibrad macalinimo balse markii uu tusay waraaq gacansiin oo uu ka wato xukuumadda ayuu aqbalay inta uusan bixin Henry maamulihii wuxuu u sheegay in fasalka lagu qoray uu yahay ardayda ugu dib jirsan iskuulka subaxdii xigtay Henry shaqadii ayuu bilaabay markii uu soo galay fasalka wuxuu arkay in sheekadu dib jir dhaftay oo ay taagan tahay dib jiros xitaa markii uu isku dayay inuu la hadlo way iska dhigatireen markii uu arkay halka waxaan ku marayo ayuu fasalka gudaha u galay isagoo tala bixin ka siin waxay ay sameynayeen Henry wuxuu tagay arday ayra Zufa oo gitaar ciyaari lana garaacay gitaarkii sidiis la mid ah wuxuu tagay mid game ciyaarayo wuxuuna u sheegay waxyeelada uu indhihiisa ku yeelan karo iftiinkan uu saacadaha badan daawanayo ugu dambeyn markii ay bilaabeen inay dhageystaan ayuu isbaray isagoo sabuurada ku qoray lambarkiisa iyo magaciisa ardaydii ayaa ku wada qoslay maadaama uu farxin yahay mid ka mid ah ardaydii ayaa wacay una sheegay inuu fasalka isaga baxo mar kale ay dib ugu noqdeen khiyaaligoodii Henry oo garwaaqsaday dibjirnimadii lagu sheegay ayaa qatay jeesto iyo lastig kuna shishay afka hore ee tumbada dabdemiska loogu talagalay siina daysay biyihii halka daladiisu diyaar ahayd qof walba derbiga ayuu ku xararay isagoo qoyay markan indhaha ardadu isaga ayay hayaan wuxuuna yiri ku soo dhawaada fasalkayga fasalka kadib shan ka mid ah ardayda ugu dambeeysan fasalka ayaa isugu yimid qolka jimicsiga iyagoo isticmaalay sigaar Jack waa hormuudka kooxda oo wuxuuna jecel yahay gabar ka mid ah ardayda ugu xariifsan dugsiga markii ay arkeen sawirka uu la qashuucsan yahay ayuu mid ka mid ah ka dafay isagoo la kaftami waxa uu soo gashay koox arday ah oo ka wada dhashay reer taajir ah waana kooxda basketballka u ciyaara dugsiga gacan qadir kadib waxay ku jeesjeeseen Jack maadaama uu yahay wiil faqiir ah in yar kadib kooxdii ayaa ciyaari basketball Jack iyo saaxiibadii kor ay taagan yihiin Jack ayaa ogaal dhaladii uu haystay garoonka ku tuuray waxaana ku kufay kabtankii kooxda wayna wada qosleen waxaa timid macallimadii Ingiriiska Mrs Lining waxayna ganaxday Jack iyo saaxiibadii waxay macallimadii ku sameeyeen prank iyagoo buug u geliyay xiji maale way naxday misna daadisay shaax miiska u dilyaalay waraqihiina way ka qoyeen maamulkii dugsiga أول ولسن أي حفيز كيسا شركو لجرا قدية سري دكسية إيغو أشاقي إن لغا جريدونو لبعتن بقول كيبا هولفلينتا دكسية قدية أي عندين دين كسمي دكسية سيدي ووغادان سيدي لو استحمالي هولفلينتي لو قبتي هنري أي فصل كسوغ الربا حلقة أرضيدو أي الباب كدوشيسا وحرين باف ير وبيوكو جرو سي أي برانك واسواميان وسوغالي baafkii ayaa soo dhacay si degdeg ayuu tiiba sabaxa ugu dhuftay ardaydii afka ayay taageen iyagoo ka yaaban sabaxada Abu Soomaaliga ah Henry wuxuu weydiiyay Jack baakad sigaar ah isagoo hore u ogaa inuu cabo una u dhiibay iyagoo leh yaaban sida uu yeeli doono Henry wuxuu weydiiyay Zufa inuu sheego saddex ka mid ah maadooyinka sigaarka lagu sameeyo markii uu sheegayna uu fasaxay miiska ayay garaaceen sula fasaxo markii aamuseen ayuu mid walba u dhiibay xabad sigaar ah si ay u falanqeeyaan maadada uu ka kooban yahay Henry wuxuu ogaa haddii uu u sheego ardayda dhibaatada sigaarka in aysan si fudud uga qaadanaynin sidaa darteed wuxuu weydiiyay saameynta ka dhalata cabista sigaarka wuxuu uga faalooday waxyeelada uu sanbabada ku yeesho iyo waxa kalifo inuu qofku joogteeyo waana markii u horreysay oo ardadu si xiiso leh ugu egtaagaan waxbarashada markii uu gambaleelku yeeray wuxuu u sheegay in dhammaantood soo celiyaan sigaarka wayna soo wada dhiibeen iyagoo jooga maqaaxido ayuu kabtankii basketballka lugta u dhigay Jack saaxiibadii muran ayaa dhashay gacan ayaana xigtay iyadoo maqaaxidiina hawdeeda la kiciyay maamulihii ayaa Henry u dhiibay warqadda ganaaxa shan ka mid ah ardaydiisa Henry oo gurigiisu isi socdo ayaa arkay Jack oo mar kale dagaalamay Henry markii uu ku yiri Jack isdeji Jack ayaa ugu jawaabay dugsigan cadaalad kama jirto mana la ganaaxo caruurta taajiriinta
gelinkii dambe henry ayaa baaray faylasha 5 arday si uu xogtooda wax uga ogaado. Suus oo kan koobaad ah waxaa dhalay aabbo Bakistaani ah, mar walbana cunsuriyad ayaa lagula dhaqmaa maadaama dalka qariib ku yahay. waxaa martaxweeyey dariskiisa isagoo ku eedeeyey tuuganimo, noloshana wuxuu ku hamiyaa inuu noqdo fanaan. tan labaad waa gabadha la yiraa Danan. markii ay dhalanaysay aabbaheed wuxuu jeclaa inuu wiil loo dhalo, weligeedna kalgacayl uma uu muujinin. si wiil ay isugu ekaysiiso wax badan ayay u samaysay, xitaa timaha ayay iska jartay, laakiin aabbaheed way soo jiidan wayday. walaalkeed ka yar oo keliya ayuu diiradda saaraa, kalgacaylna uu muujiyaa. dhanka kale waa Bruce iyo Chris oo walaalo ah. iyagoo yaryar ayay hooyadood nin kale ka raacday, aabbahoodna arrinka darteed ayuu xabtooy u noqday. labadooda ayaa isgarabsada. Bruce wuxuu noqday mid goor kasta video game ciyaara si uu xaqiiqada isaga indhatiro, halka Chris uu ka shaqeeyo dukaan si uu noloshooda u daboolo. ugu dambeynna Henry wuxuu waayay wax xog ah oo ku saabsan nolosha Jack. muuqaalka xiga waxaynu aragnaa Jack oo kamaleerika ah baar. waxaa soo galay nin la yiraa Jan Ying, lana kulmi saaxiibadii ganacsiga. Jack ayaa xadi Jan Seeger. waa la qabtay Jack, bag iyo xabad ayaa laga garaacay. markii uu gartay Jan inuu yahay arday ayuu lacag siiyey shaqo. goob kale Henry wuxuu booqday guriga Zufa. wuxuu arkay aabbihii oo ceyrsan. wuu ka celiyey. markii uu ogaaday inuu tikid ka xaday ayuu ka maslaxeeyey. waxaa goob kale joogo Henry iyo Zufa. si uu farxad geliyo ayuu Henry la heesay koox heesi, halka markii dambena uu Zufa na heesay dadkii hortooda. waana markii ugu horreysay oo uusan la kulmin wax cunsuriyad ah. isla habeennimadii guriga Bruce iyo Chris, aabbihii ayaa saq dhexe yimid una sheegay in qamri loo raadiyo. markii ay diideenna wuu ku qayliyey, wuxuuna yidhi iiga baxa guriga. maalintii xigtay Henry ayaa la kulmay aabbahood una sheegay inuu ku xaroodo in muddo ah xarunta dhaqan celinta ilmihiisa darteedna uu u sameeyo. dhanka kale Dinas aabbaheed ayaa u keenay makeup una sheegay inay hal mar isu ekaysiiso gabar, waxayna ugu jawaabtay goor kasta in uu liido. waxay makabkii u marisay wiilkii ka yaraa, iyadoo aabbaheed ka hoos qaadatay gaarigii. balse markii ay ka baxaystay albaabka, Henry ayaa u istaagay, wuxuuna u sheegay inay dembi tahay inay ka xiso iyadoo aanan wadan butanta. taas beddelkeeda wuxuu geeyey garoonka tartanka baabuurta isagoo ku casuumay aabbaheed. waxaa u bilowday tartan, labadooda xawli ayay ku wadaan. Danan ayaa si khaldan waddada uga baxday iyadoo shil gashay, balse ka badbaaday. aabbaheed oo moodayay in gabadhiisu dhimatay ayaa oohin afka furtay, isagoo qirtay jacaylka uu u qabo gabadhiisa. Danan waxay garatay inuu jecel yahay, way soo baxday, hab ayayna siisay. maalintii xigtay Chris iyo Bruce ayaa loo diray waraysi goobta dhaqan celinta, balse waxaa yaab ku noqotay markii ay arkeen aabbahood oo goobtii jooga. ardaydii ayaa weydiiyey sida uu ku bilaabay qamriga, wuxuuna sheegay inuu jeclaa xaaskiisa ayna ka tagtay xilli uu uga baahnaa in ay garab istaagto. markii uu cabista badsadayna uu hilmaamay mas-uuliyaddii ilmihiisa, wuxuuna cafis weydiisay ilmihiisa, iyaguna qiiro ayay la ooyeen. goob kale oo lagu hayo tartan buljim ah, Jack wuxuu bilaabay inuu u shaqeeyo Jan Ying, isagoo lacag badan siiyey si uu maandooriye ugu daro cabitaan ka feeryahanka ka soo horjeedo Jan Yang. Jack kuma qanacsana, balse waa lagu qasbay. maalintii xigtay Jack oo feeryahankii kale ugu daraya cabitaanka maandooriyaha ayaa gacanta lagu dhigay, isagoo sheegi rabo in uu falka ka dambeeyey Jin ayaa la qabtay, waxayna ku xireen qaanad. waxaa goobtii yimid Henry oo raadin Jack, waxaana loogu jawaabay in uu isaga laabto, haddii kaleetana lafaha laga garaaci. Jack ayaa qaanadii ka dhex yidhi ibadbaadiya. waxaa bilowday dagaal, waxaana isu baxay Henry iyo dagaalyaankii u tartami rabay Jin Yang. Henry ayaa lafaha ka garaacay kana guulaystay. muuqaalka xiga waxaynu aragnaa Henry oo lagu daweyn dhakhtarka. Jack wuxuu damcay inuu sheego sirta Jin Yang, balse wuu aamuseeyey. dhacdadii ayaa laga tabiyey muuqbaahiyaha. Henryna waxaa loo aqoonsaday inuu ka guulaystay feeryahan caan ah si uu ardaydiisa u badbaadiyo. caan ayuu noqday,
ardaydiina waxay bilowday inay qadariyaan. markii uu fasalka soo galay horay ayay ugu istaageen waxayna muujiyeen isbeddel ka duwan kii lagu yaqiinay. xusuus hore waxaynu aragnaa henry oo turiyeen wiil yar oo piyaano ciyaari waalidiinta hortooda. in yar kadib isla ardaygii ayuu la dagaalamay isagoo gacanta ka jebiyey isagoo lagu ganaxay ugu dambayna magaalada ka tagay. xiisaddii xigtay waxaynu aragnaa ardaydii oo hayo dadaal xoog leh una diyaargaroobi imtixaanka qaranka. markii uu charlie isku mashquuliyey ciyaarta geemka, bruce oo walaalkiis ah wuxuu bilaabay inuu isticmaalo kaniin maandooriya ah. taasina waxay sababtay inuu niyad degan uga shaqayn waayo imtixaanka. henry wuxuu u ballanqaaday inuu caawin, balse bruce welwel badan ayuu dareemay. ugu dambayna wuxuu iska tuuray balkoonka. dhakhtarka ayaa loola cararay wuxuuna galay koomo. warbaahinta oo hadal xiisa ficilka bruce ayaa ku eedeeyey dugsiga iyo henry. wasaaradda waxbarashada ayaa waraysi la yeelatay henry waxayna kala noqdeen fasaxii macalinimo. henry oo sii baxayo ayay ardada u qayliyeen iyagoo leh hanaga tegin. aad bay u niyad jabeen waxayna go'aansadeen in ay ku dadaalaan imtixaanka si ay magaciisa kor ugu qaadaan. waxayna bilaabeen dadaal dheeraad ah. maalintii imtixaanka henry ayaa fariin u soo diray jack isagoo u sheegay in ay la kulmaan ardada fasalka oo dhan 1 saac ka hor imtixaanka. markii ay isu yimaadeen ardadii waxay ogaadeen in ay ahayd khiyaano u watay jin yang isagoo doonay inuu ka baajiyo imtixaanka si uu uga arguto henry. in yar kadib henry ayaa yimid wuxuuna ogaaday qorshihii jack. wuxuu yimid goobtii jin. dagaal kadib ardaydii ayuu meeshii lagu haystay ka saaray waxayna u ordeen goobtii imtixaanka. henry oo la dagaalami jin yang ayaa u sheegay inuu yahay jin, wiilkii yaraa ee uu turiyanayay gacantana ka jebiyey. maalintii kadib uusan ciyaarin wax biyaano ah uuna ku dhaliilo henry. henry wuxuu isku dayay inuu u sheego sababta ku kaliftay, balse jin fursad wuu u siin waayey. dagaal dheer kadib henry ayaa mindi gelin gaaray jin wuuna iska daayay isagoo xafis ka weydiistay wixii uu yaraantiisa yeelay wuuna ka tagay. ardaydii saacaddii loogu baahnaa ayay imtixaankii qaateen. maalmo kadib waxaa soo baxay natiijooyinkii imtixaanka. dhammaantood way ku baaseen. jin yang wuxuu dib u bilaabay ciyaartii biyaanada. brucena koomadii ayuu ka soo baxay. guddigii dugsiga ayaa 20% miisaaniyaddii u kordhiyey maadaama ardaydii keeneen dhibco sare. henry shaqadii ayuu dib ugu soo noqday wuxuuna mar kale ku furay biyihii dabdemiska, balse ardaydu ma ahan kuwii hore ee waa kuwa cusub. filimkani halka ayuu ku dhammaaday. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe daado waa inuu dhiirigelin. haddii aad muuqaalka ka heshayna like saar kana mid noqo asxaabta ku xiran. mahadsanid.